بسم الله الرحمن الرحيم كلنا وعن ونكسن داوديال halka aad naga daawanaysaan waa channelka xogta media waxaad ku soo dhawaataan warbixin gaar ah oo aan diradda ku saari doono marxaladihii kala duwan ee Puntland soo martay iyo xaaladda cakiran ee iminka ka taagan xiisad culus ayaa ka jirta Boosaaso waxay u dhaxaysaa Saciidani iyo hogaankii xilka qaadista lagu sameeyay BSF Maxamuud Cismaan Diyaano warbixintan ayaana daawadayaal isku dul taagi doona xaaladihii kala duwan iyo marxaladihii isa soo daba tixnaa ay soo martay Puntland madaxweynayaashii soo maray iyo BSF dhismaheeda halka uu ka soo bilowday ayaa daawadayaal warbixintan idinku gorfeen doona hayeeshee intaanan guda gelin waxaan ka codsanayaa in muuqaalka like saarto la wadaagta asxaabtaada subscribe noo saartay channelka furata gambalka sidoo kale qaybta hoose ee faalada lagu gudbiyo commentiga aragtidaada inoogu reebto markaana Saciidani iyo reer Diyaano xaqiiqda colaadda Boosaaso warbixintan ayaan ku eegi doonaa didiba u aasida maamul goboleedka Puntland waqti laga joogo 23 sano waxa uu soo halgamay siyaasiyiin waxgarad saraakiil iyo qaybaha kale ee bulshada kumana iman xabad iyo awood cid gaar ah sheegata hase ahaatee tala guud iyo maslaxo la isla qaatay oo ay heshiis ku gaareen beelaha oo wadaagta ah isla garteen taasi waxay horseeday maamul nidaam iyo kala dambeyn leh ee ku soo xukumayeen madaxweynayaal xukunka isku dhiibayay iyadoo aysan dhicin wax qalalaas ah oo bulshada ku midaysan magaca Puntland ay ku dooranayeen hadba madaxdii ay u arkaan in maslaxadda ummadda ka shaqeynayo tan iyo aasaaskii Puntland waxa maamulkaasi soo maray 5 madaxweyne oo kala ah Abdullahi Yusuf Ahmed Rabbi ha u naxariiste oo lagu aasaasay Puntland Cadde Muuse Xirsi Allah ha u naxariiste Cabdiraxmaan Farole Cabdiweli Cali Maxamed Gaas iyo Saciid Cabdullaahi Deni oo hadda xilka haya ma jiro madaxweyne Puntland soo maray oo caqabada iyo colaadda Boosaaso ka taagan mid la mid ah la kulmay Puntland u horseeday shacabkeeda barakac dhimasho iyo maamulkii dawladnimo uu noqdo mid jaandaar rogan marka laga reebo qalalaasii xukun ku dirirka Jaamac Ali Jaamac iyo Cabdullaahi Yusuf balse xalkeeda degdeg noqday dabcan way jireen dhibaatooyin hore oo madaxdii Saciidani ka horeysay ee la kulmeen hase ahaatee marka dib loogu noqday isimada iyo waxgaradka ay xalin jireen iyadoo Puntland Soomaalida kale ugu duwaneyd ixtiraam iyo qadarin ay mudnaayeen isimada oo warkooda war kale la daba dhigi jirin hase ahaatee xilligan aysan jirin maamul iyo cid tixgelinaysa go'aamada isimada ay ka soo saareen colaadda magaalada Boosaaso ka taagan muddo 3 cisho ah sababtayna dhimasho dhaawac barakac iyo burbur hanti dadweyne marka aan u soo laabto dulucda warbixintan colaadda Boosaaso maalmahan ka taagan ee u dhaxaysa isla ciidamada Puntland ee u kala baxsan dhinacyada madaxtooyada iyo kuwa argagixiso la dirirka BSF Puntland Security Force oo hore loo oran jiray BIS waxaa la aasaasay sanadkii 2001 kadib weeraradii mantaanaha ahaa ee lagu qaaday New York iyo weerarkii kale ee Al-Qaacida ku qaadeen ciidamadii Mariniska Mareykanka ee USS Marine Corps sanadkii 2002 madaxweynihii hore ee Puntland Rabbi ha u naxariistay Cabdullaahi Yusuf Ahmed oo noqday markii dambe madaxweynihii dawladii ku meel gaarkeeda Soomaaliya ayaa intii uu ahaa madaxweynaha Puntland saxiixay in Mareykanka uu saldhig yar ka sameesto Puntland si loola dagaalamo argagixisada heshiiskaasi kadibna waxa agaasimaha BIS noqday Maxamed Aadan Bidaar oo markii dambe xilkaasi uu kala wareegay Cismaan Diyaano sanadkii 2004 xilligaasi oo hay'adani soo shacbaxday markii uu xilka la wareegay Cismaan Diyaano oo ciidamo tayo leh deegaanada Puntland ka qortay xilligaasi wixii ka dambeeyay Puntland waxay wajahday la dagaalanka argagixisada iyo in kor loo qaado arrimaha sirdoonka iyo ugaarsiga kooxaha argagixisada oo Puntland aakhirkii ay noqotay meel ay ka baqaan kooxaha nabadiidka markii uu xilka qabtay Cabdiraxmaan Farole sanadii 2009 in uu la dagaalamo nidaamkii haykalka hay'adda BIS ee waqtigaasi la oran jiray laguna tirin jiray hay'adda kaliya ee awood ciidan iyo nidaam leh maadaama uu Mareykanka taageerayay wuxuuna Farole soo jeediyay
in xilka laga qaado Cusmaan Diyaano sanadkii 2010 taasi beddelkeedana u magacaabay sargaal kale oo jufada Cusmaan Diyaano ahaa. waxaase si cad ugu hor yimid saraakiishii iyo mas'uuliyiintii Mareykanka ee u xil saarnaa arrimaha Soomaaliya iyo argagixiso la dirirka, maadaama Mareykanka ay sheegeen in ay aaminaad ku qabeen aqoonta iyo kartida Cusmaan Diyaano Rabbi ha u naxariiste. geeridii Cusmaan Diyaano Rabbi ha u naxariiste kadib waxay hay'adda BIS noqotay mid ay soo farageliyaan maamulkii Cabdiraxmaan Faroole, waxaana la isku dayay in loo kala qaado laba hay'adood oo kala ahaa ciidamo ka hortaga ammaanka iyo ciidan gaar ah oo argagixisada iyo sirdoonka Puntland ah. waxaase aakhirkii xilka la wareegay General Asad Cusmaan Diyaano oo ah wiilka uu dhalay agaasimihii hore ee hay'addan ilaa iyo 2018 dhamaadkeedii. xilligaasi uu ka qayb galay tartankii doorashada madaxweyne ee Puntland oo Saciidani oo 2 cod kaliya uu ugu qaaday. xilligaasi kadib waxaa xilka la wareegay Maxamuud Cusmaan Diyaano oo ku soo koray magaalada Boosaaso laakiin haysta sharciga Sweden, wuxuuna intii uu xilka hayay ee Mareykanka ku qanacsanaayeen habmaamulkiisa iyo nidaamka maareynta shaqo ee uu Puntland ugu hortaagnaa argagixisada. cid kasta oo Puntland ka soo jeeda shaki kama saarna in hay'adda BSF ama BIS ay ahayd hay'adda amni ee dadka Puntland ku seexan jireen ammaan ee horseeday. maantase waxaa weji xun u yeelaya maamulka hadda talada haya ee Puntland, taasina shacabka Puntland u maleyn maayo in ay aqbali doonaan. sababta xilka qaadista agaasimaha BSF iyo dagaalka qarxay talo xumida dagaalkan uu ku dhacay ayaa loo sababeynayaa 2 arrimood. tan koowaad oo ah madaxweynaha Puntland oo la talinaya kooxda saamileyda Aranjan oo madax u yahay wasiirka maaliyadda, lana yiraahdo in uu isku hayo xilalka wasaaradaha maaliyadda, arrimaha gudaha iyo amniga oo lagu magacaabo Xasan Shire Cabdi Abgaal oo ay qoys yihiin madaxweynihii hore ee Puntland Cabdiraxmaan Faroole, iyadoo la sheego laguna xanto in ay heshiis ku yihiin hagbada dhaqaale ee Puntland iyo xero isku dhiibka Maxamuud Saleebaan. xilligaana loo carbinayo xilka marka uu baneeyo Saciidani shakhsi aad ugu dhow gaar ahaan jufada Ciise Maxamuud, maadaama uu isagu yahay mas'uul u hanqaltaagaya xilka madaxweynenimo ee Soomaaliya. arrinta kale ee xusida mudan ayaa ah in markii uu digreetada uu soo saaray Deni xilkana uu ku qaaday agaasimaha BSF ee uu u magacaabay Amiin Xaaji Khayr, ujeedada ugu weyn waxa ay ahayd in walaalkii Xasan Deni uu u magacaabo agaasimaha hay'adda si dhaqaalaha ay Mareykanka bixiyaan ugu xaroodo kooxda Aranjan iyo qoyska Deni oo ka xun loolankii doorashadii uu la galay Asad Cusmaan Diyaano ee uu kaga guuleystay 2 cod. Deni oo Asad u arkay nin shacabka kalsooni fara badan ka haystay, wuxuu qorsheeyay Deni in awoodiisii dhaqaale iyo ciidan weeqo si Asad looga taqaluso in la xidida loo siibo hay'addii uu Asad ka soo muuqday ee BSF. ugu dambeyntii Puntland gaar ahaan magaalada Boosaaso oo ah xarunta dhaqaalaha Puntland xilligan uma baahna dagaal iyo barakicin, taasi beddelkeedna waa in la qaato baaqyada nabadeed ee isimada iyo waxgaradka labada dhinac ugu baaqeen xabad joojin shuruud la'aan ah si dalka iyo dadka loo badbaadiyo. nabad ayaa naas la nuuga leh. waxaa qoraalkan aan idila wadaagayno isla markaasina aan idii soo gudbinayno qoray Cali Muxyidiin. guud ahaan daawadayaal waa inaga intaa warbixintii aad kala socoteen channelka Xogta Media. fadlan haddii aad daawatay muuqaalkan like inoo saar, subscribe inoo saar channelka Furagan Balalka si durbadii baad u heshay muuqaaladan halkan soo gelino. sidoo kale daawada muuqaalka qaybtiisa hoose ee faalada lagu gudbiyo commentiga aragtidaada inagula wadaag. tan iyo warbixintan mid lacina inta dib isugu kulmi doonana sidaas iyo nabad.